darajooyinka biliiska ku taxani waa in karaamada dadka ay huwan yihiin ilaaliyaan weeyaan taliyaha biliiska waxaan weydiinayaa goormaad xubin xisbi noqotay oo af xisbi iyo af siyaasi aad ku hadashay iyadoo amniga lagu diray goormaad ku goodidaa inaad tiraa xildhibaano xasaanad labaan xidhaya goormaad jabisaa qodobo dastuuriya qodobka 12aad firqadiisa 1 iyo 2 ee damaanad qaada ee barnaamijka silmiga inaad adigu aad ka hor timaado xildhibaanada waa kuwa xagga fadhiya hadda xabsiga u taxaab bal waxa ka dhashay waa la arki hadda awood u leedahay weeya xuquuqda ummadana adiga iyo cid la mid ma hor istaagi karayso nabadgelyadana anaga mas'uuliyadda naga saaranta idinkii nabadda hayn lahaa in la idinka baryama ciidamada booliska iyo ciidamada nabadgelyada fariin dheer baan u diraya waan ognahay duruuftiina waan ognahay dadaalkiina cidda idin damqatay idin doodaa waa xildhibaanada miisaaniyadiina weydikii ogaasaan leedinku ansixiyay ciidanow war ninka bilayska ee qoriga wataw war mahooyadaabaad xabad ku dhufani mudaharaada salmiya oo rabshado wadan inay ku cabiraan aragtiyahooda taana waanu taageersan maanta waxaa laga hadlayaa khilaafka siyaasiga ee la daawanayo ay ku daaleen dadkii ahlu xalli wal aqdiga ahaa dadka wax furo waxna xidha ee culimada ahaa ee ganacsatada ahaa ee salaadiin lahaa abwaana ahaa ee loo taag waayo xukuumaddii inay sharciga ilaaliso waxaanu ka cabsi qabnaa maanta Soomaaliland baynu nahay in maalmo dhow laga sheekeeyo dal Soomaaliland la oran jiro xaaladdu waxay maraysaa meel xun ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaanu dalkeena iyo dadkeena naga burburin nabadda cidda wax ku ah waa annaga nabadda cidda wax ku ah waa saxaafadda nabadda cidda wax ku ah waa islaanta suuqa tamaanada ku iibisa nabadda cidda wax ku ah waa ninka madaxweynaha ah nabadda cidda wax ku ah waa ninka wasiirka nabadda cidda wax ku ah waa sheekha nabadda cidda wax ku ah waa ganacsiga waa wax ummadda oo dhan nolosheeda saameynay intaasiba hadday faraha ka baxaan mas'uuliyaddeeda mushkiladda soo socota cidda qaadaysa waa cidda maamulka dalka haysa war dawladda waxaanu leenahay war dawladnimada dhowra oo durbaan kaloo dagaal had tumina durbaanka tumaysaan wuxuu xoqayaa inay qabiilku kacaan hadduu qabiilku kacana waxa halis aynu ugu jirnaa dalku inuu dumo oo reerana la kala noqdo war waanu ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad baanu taana ka digaynaa arrinta mudaharaadka ma wax xukuumaddan ku eeg baa mise wax macal xukuumadaha dambe imanaya war shacabku awoodda shacabku gacantooda ku jirtaa iyagaa waxna doorto waxna diida cirro hadduu maanta madaxweyne noqdo oo shacabku ay ka cawdaan waxa noloshooda taabanaya ay dhahaan madaxweyne waxaan ma aqbalayno waa lagu mudaharaadaya wax maamulkan maanta jooguun quseeya maaha waa xuquuq dastuuriya madaxweyne aanu cidna haysan karin war awal waxaanu ka hadlaynay maciishadoo qaaliyooday war waxaanu ka hadlaynay leyrkoo qaaliyoobay war waxaanu ka hadlaynay basaskii oo la raacayo war waxaanu ka hadlaynay nolosheenna war wixii aanu ku noolaynay sida hawada oo kale aynan ka maarmaynay nabadgelyada ahayd baa maanta inay faraha ka baxday in yar aynu u jirno oo halis ku jirtaa waanu arkaynaa waxaad mandaqadda ka dhacayo deegaanka soomaalida Itoobiya waxa ka socda waynu arkaynaa nabadgelyadooda halis inay gashay oo dagaal ay ka socdaan oo xuduudda wajaala inoo dhaxayso war xukuumaddu ha ku cibro iyo cashar qaadato waxa dhacaya war qofna ma haysan karayo ummad xora oo ilaahay abuuray oo dal leh oo cashuur bixiya oo ilaahay karaamo siiyey oo qodobka 37aad ee dastuurka firqadiisa labaad u damaanad qaadaysa karaamadu ilaahay siiyey in dawladdu ilaaliso in dawladdu dib ay u gumaysato nabadooda laga waxyeelayo qofina qof ma gumaysan karayo qof kastaba xilka 5 sano haya inta loo doorto baanu ka baxaya laakiin Umar bin Khadaab lahaa mata istacbadtum an-nas waqad waladat ummahatum muhra wargoomaad dadka gumaysataan iyagoo hooyooyinkood iyagoo xora dhalay war dadka Soomaaliland ka damqanaya iyo dunidaba waxaanu leenahay war nabadgelyadeenna halis bay ku jirtaa war cidii nabadgelyada ilaalin lahayd oo dawladdiya laga barayaa nabadgelyada ilaaliya war bilayskii baa hanjabaya oo ku hanjabaya nabadii baa faraha ka baxayso xabad baanu isticmaalaynaa war jananadii baa siyaasiyiin noqdood arkaysaan war Soomaaliland ha kacdo war maanta baaq dheer baanu diraynaa ummadda Soomaaliland ha kacdo annaga iyo goolahayagu daawan maayo waxaan socda waajibaadka dastuuriga ah ee gooluhu nafaray oo tallaabo sharciya ay cidda fidnada dalka ka wadaan ka qaadi doonaa dhawaanna wad arki doontaan markuu gooluhu furmo eegana mayno shir degdega ayaa gooluhu inuu ku furmo aanu dalban doonaa cidda waxaa samaynaysana tallaabo sharciyood arki doontaa baa laga qaadi doonaa
waxaan ku gabagabaynayaa kaadi waxaan ku gabagabeynayaa waxaanu arkaynaa imika olo ciidankii nabadgelyada gacanta ku haya oo bilayskii waxaa hadda jawaabayay taliyihii ciidanka bilayska shuruucda bilayska way ka reeban tahay taliye bilays oo guddoomiye xisbi mucaarada u jawaaba darajooyin baa booliiska ku taxan darajooyinka bilayska ku taxani waa inay karaamada dadka ay huwan yihiin ilaaliyaan weeyaan taliyaha bilayska waxaan weydiinayaa goormaad xubin xisbi noqotay oo af xisbi iyo af siyaasi aad ku hadashay iyadoo amniga lagu diray goormaad ku goodidaa inaad tiraa xildhibaano xasaanad labaan xidhaya goormaad jebisaa qodobo dastuuriya qodobka 12aad firqadiisa 1 iyo 2 ee damaanad qaada ee barnaamijka salmiga inaad adigu aad ka hor timaado xildhibaanada waa kuwa xagga fadhiya hadda xabsiga u taxaab bal waxa ka dhashay waa la arkay hadda awood u leedahay weeyaa xuquuqda ummadana adiga iyo cid la mid ma hor istaagi karayso nabadgelyadana anaga mas'uuliyadda naga saaranta idinkii nabadda hayn lahaa in la idinka barya ma ciidamada booliska iyo ciidamada nabadgelyada fariin dheer baan u diraya waan ognahay duruuftiina waan ognahay dadaalkiina cidda idin damqatay idin doodaa waa xildhibaanada miisaaniyadiina way idinkii ogaasaan leedinku ansixiyay ciidanow war ninka bilayska ee qoriga watow war ma hooyadaabaad xabad ku dhufani war ninka bilayska qoriga watow ma aabahaabaad xabad ku dhufani war ninka bilayska qoriga watow ma walaashaabaad xabad ku dhufani war ninka bilayska qoriga watow ma walaalkaabaad xabad ku dhufani ma dhagar iyo dhiig sokeeyaad sababi mise waajibaadkaaga dastuurigaabaad gudanoo dadka ayaad nabadgelyadooda ilaalin waxaan xidhaale idin yaalla maanta war ciidankii bilayska in la siyaasadeeyo maaha war ciidankii amniga hayay in la siyaasadeeyo maaha war goobaha iyo instituushanada ay ka reeban tahay siyaasaddu ay ciidanku kowkay war ka feejignaada amarada khaldana laydin farayo war dalka dagaal sokeeya u horseedina war rabshadaha socda siyaasiga ku milmina war nabadgelyada qaybtiina ka ilaaliya war nabadgelyadeenni halis bay ku jirtaa maanta fawda la abuuraya dawladdii nabadgelyada ilaalin lahayd baana fawdada abuuraysa durbaan qabaliya baa la qaraacaya dagaal sokeeya la doonaya laakiin aqbali mayna dastuurka sareynaya sharciga dalkan iyo dadkana annaga u dhaarana annagana badbaadina cidda fidnada watana annaga qaban doona waxaan doonayaa su'aalaha waan iswada weydiinaynaa su'aalaha waan isku dambaynaynaa waxaan doonayaa aan ku gabagabaynayaa Somaliland waajibka cid u saaran yahay marka goolayaasheeda laga yimaado culimada fariin u diraya waxaan ku hadlaynaa maanta maaha mucaarid iyo muxaafid saxaafadu mid ah ogaato waxaanu ka hadlaynaa maaha wasiir iyo xildhibaan waxaanu ka hadlaynaa maaha saxaafad iyo askari waxaanu ka hadlaynaa maaha shicib wadnaha farta lagu wada hayaa maxaa dhici doona baa la leeyahay dad maasoo soo baxay iyo dad amar khaldan la siiyey markay isku dhacaanna waxa ka dhalan doona iyo goodiyada socda iyo waxa socda waynu arkaynaa ciddii ay ahayd inay xalliso dulqaad yeelato dhabar yeelato imkaaniyaadka dawliga gacanta ku haysay odayaal noqdaan mas'uuliyadda dalka ilaaliyaan nabadgelyada ilaaliyaan dhaar ku maray waa xukuumaddii baa laga barayaa nabadgelyada ilaaliya war ummadda culimada leh gaar ahaan culimada waaweyn dalka waxaanu leenahay nabadgelyadu iyana faraha ka bixina doorkiina qaata oo dalkan ha loo turo hareeraheenna waxa ka socdana waa la arkaya maanta waxaana damqayaa waa nabadgelyada arrimaha mudaharaadka ee la sheegayo wax ka iman doona xitaa lagaga haybadaysanayo maaha waa xuquuq muwaadin uu dastuurku u damaanad qaado weya war haddii kale digteetaraynu abuuraynaa hadday shicibku ka hadli kari waayaan war leyrku waa nagu qaaliyo ka mudaharaadi kari waayaan hadday shicibku ka mudaharaadi kari waayaan war biyaanu laanax oo caasimadii baanu bilaa biyo ku noo booyadaa noo dhaamiya war hadday shicibku ka mudaharaadi kari waayaan gawaadhidii aanu raacaynay baa istaagtay dawladda gawaadhi baanu ka doonaynaa war hadday shicibku ka mudaharaadi waayaan cusbitaallo caafimaad baanu doonaynaa war hadday shicibku ka mudaharaadi kari waayaan waxbarasho bilaashaanu doonaynaa waxa dhacaya waa dictator marka waa in dastuurka la raabaayo danaha dad gaari waa inay shaqeeyaan dastuurka wana saxaafadda waynu arkaynaa waxa ku socda waa la xidhayaa waa la caburinayaa waxaanu arkaynaa xildhibaanadii xasaanada lahaa ee shacbiyadu dooratay
ee aan la taaban karayn baa ciidankii leeyahay iyo dawladdii xabsigaanu dhigaynaa war ma waxaynu sugnaa intay dawladdu dagaal sokeey ridayso